السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku tuso sida Google Classroom-ka loogu dhex diro assignment-ga aad diyaariseen. Assignment-ga aad diyaarisay sida Google-ka loogu diro macalinka loogu diro. Marka hore waxaan u baahanahay inaan furano Chrome-ka si Google Classroom-ka aan u dhex tagno. Fadlan Chrome-ka taabo oo furo Chrome-kaaga. Markaad Chrome-ka taabtid qaybta sare waxaad ku qoraysaa Google Classroom. Google Classroom ayaad ku dhufanaysaa markaa ku dhufata kadib waxaad taabanaysaa linkiga labaad oo meeshaan ay ku qoran tahay Google Classroom taabo oo afwan kana gacantayga dhacay maya kan labaad laga rabaa inaad taawtid kan back dheh midkaan taabo markaa taawto kadib waxaad toos wuxuu ku geenayaa marka meesha macalinka aad iska diiwaangelisay Gmail-kaaga meesha ku save garasnaa oo Google Classroom-kaaga iyo meesha assignment lagu soo diray ku geenaa kadib qaybta sare waa kana macalinka qaybtan sare waaye kana leenahay waxaad taabanaysaa kadib qaybta sare macalinka dashboard-ka taabo marka taabto kadib meeshaan hoos soo soco waa qaybta meesha assignment-na la soo diray linkiina la soo diray halka sare ay ku qoran tahay Classwork ayaa taabanaysaa markaad Classwork taawtid waxa ku soo baxayo halkan ay ku qoran tahay assignment-gina la soo diray macalinka oo halka assignment 3 marks saaran amal ay tahay saasi taawanay waxa tagay qaybta hoos ay ku qoran tahay view management view marka taawto kadib halkan ay ku soo bandhigaya marka waxa taawanay halkan ay ku qoran tahay add or create meesha ku qoran tahay meesha ay ku qoran tahay add or create marka taawto kadib inta ku soo bandhigaya marka halkan qaybta sare hadii oo assignment-ga Google-ka yaalo ama haduu ku yaalo Gmail-ka haduu ku yaalo waa qaybta sare qaybta labaad waa link daarti ina macalinka u dirtid qaybta saddexaad waa file markii oo telefonkaaga dhaxdiisa dhex dirayso waaye haduu miimaraha emails haduu ku yaalo qaybta kale hadii document ahaan u dirayso waaye waad ahaan aniga hadda marka waxaan ku dirayaa qaybta qoran doona Gmail-ka ugu yaala marka assignment-ga kadib sidaan ayaa ku soo bixayso qaybtan upload ku qoran iyo qaybta ay qoran tahay my drive aan taawana sababtay tahay assignment-ga wuxuu yaalaa Google-ka ama wuxuu yaalaa Gmail-ka oo yaalaa kadib qaybta hoos aan u soconayaa Gmail-kan ka dhaxraana Gmail-ka dhex jooga hadda waa kan labada assignment marka labada waraaqna la diray waa midkan number 1 iyo number 2 marka hal mar u dirto waxa sameynaysaa tuuji ama riix hadda xujida warka riixday wuxuu ku dhahay hal xabba ku dooran kan labaad taawo laba xabba ku dooran ku dhahay kadib waxa taawanay halka ay ku qoran tahay insert marka insert taawtidna sidaan uu sameeyay marka wuxuu bilaabaa inuu markaas sii socdo kadib waxa taawanaysa halka ay qoran tahay hand in meeshan calaamadan hand in taabo hand in marka taawtid kadib waxa leedahay hand in sidee marka taawtid kadib wuxuu sameyn doonaa uu baxaya oo toos iyo marka uu baxaya hand in process ko dhameystay marka waa intaas marka sidaas u diraysaa hadii aad macalinka inaad private message ugu qortidna qaybta hoos add comments taawani meesha private-ka ah waxa dhigi kartaa ustaad assignment-ga ku soo gaaray ama waa soo dirna amal waxa arta markaas u diri kartaa waa qaybtan hoos waa private way adii macalinka ka dhaxeeyo waa message qaas ah way marka ardayda xoogaa yar ku cusub qaabka loo isticmaalo aan ka seenin ayaan ugu talagalay muuqaalkan aad ugu mahadsantihiin daawashada qurux badan fadlan janaalka ku cusubta subscribe saar la wadaag asxaabtaada muuqaal ku share garay hadii aad muuqaalka heshin like saar intaan ku kulmeen muuqaalka xigo waxa idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.